burburin, barakicin iyo xasuuq aan loo meeldayn ayuu Ruushku ka geystay Shiishaan, laakiin maanta waa hubka uu Ruushku adeegsado sidoo doono. Haddaba sidee dalkan shalay dagaalka la galay Ruushka maanta u noqday gacantiisa midig? Soo dhawaada daawadayaal, muuqaalkeena ayayna uga jawaabi doonaa su'aalahan. Shiishaan, mid ka mid ah dalalka muslimiinta kuwooda ugu maylka adag, dal sanooyin yar ka hor la galay dagaal ba'an oo aan waxba la isku reeban ciidamadii Ruushka. Madaxweynaha Ruushkana Vladimir Putin uu ka geystay xasuuq ugu foosho xumaa ee ummadda loo geysto. Wuxuu ku fasaxay ciidamadiisa la galay dagaal dad iyo dunyaba lagu xasuuqay. Bilowgii sagaashameeyadii, sarkaal lagu magacaabo Johar Dadayev oo ka tirsanaa ciidamada Shiishaan ayaa wuxuu afgambiyey xukuumaddii shuuciga ahayd isagoo ka faa'iideysanaya burburkii midowga Ruushka. wuxuuna ku dhawaaqay markii uu xukunka la wareegay inuu ka hoos baxay midowga Ruushka. sanadku markuu ahaa 1994 ayuu Ruushku dagaal saf ballaaran oo 4 jeer ah ku soo qaaday caasimadii Shiishaan ee Krasny. laakiin Shiishaaniyiinta oo garab xoogan ka helaya dagaalyahanadii Islaamiyiinta ahaa ee ka dagaalamaya xilligaas dalka Afghanistan ayaa iska caabin xoogan kala hortagay ciidamadii Ruushiyaanka. dagaalkaas waxaa uga shahiiday Shiishaaniyiinta ku dhawaad 100,000 oo dagaalyahan, halka 400,000 ay ka qaxeen dalkoodii. ugu dambeyn, labadan dhinac ayaa heshiis xabad joojin ah wada gaaray, waxaana sanadkii 1996 lasoo afmeeray dagaalkii koowaad ee Shiishaan loona ogolaaday madaxbannaanidooda. Shiishaan ayaa mar kale doonaysay inay mideyso dalalka muslimiinta deriska ah isuguna geyso hal maamul. waxaa soo baxay rag hogaaminaya xarakaad jihaadi ah oo ay ka mid ahaayeen Shamil Basayev iyo Khadaab. raggan ayaana awood u yeeshay inay ku qanciyaan dadkii deganaa waqooyi Qowqaas inay yeeshaan hal dowlad oo Islaami ah, wayna soo dhaweeyeen dadku. laakiin wax kasta waxay isbedeleen sanadku markuu ah 1999 markii xukunka uu yimid Vladimir Putin. isla sanadkaas inta oo dhammaan wuxuu ciidankiisii ku amray in ay Shiishaan galaan oo ay gacanta Ruushka ku soo celiyaan. dagaal aan loo kala meeldayn ayay ciidamadii Ruushku bilaabeen, waxayna si arxan darro ah gantaalo ugu garaacayeen guryihii rayidka iyo wax kasta oo ay ishoodu qabato. laakiin wuxuushnimada ay ku naqmaayeen ma noqon mid siisa natiijadii ay ka filayeen, balse taa beddelkeeda waxaa soo gaara Ruushka khasaare xoogan oo isugu jira naf iyo maalba. taas ayaana waxay ka dhigtay inuu Vladimir Putin uu dib eegis ku sameeyo dagaalka oona garaawsado inuusan Shiishaaniyiinta qorcaaladiis oosan kaga guulaysan karin. wuxuuna adeegsaday siyaasad kale oo ah in uu kala dhantaalo raggii hogaaminaya Shiishaaniyiinta. Axmed Xaaji Qaadaroof oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamadii wax iska caabinta Shiishaaniyiinta aadna ugu dhowaa Shamil Basayev iyo Khadaab oo ahaa labada nin ee hurdada u diiday Ruushiyaanka. ninkan waxaynu u jeednaa Axmed Xaaji Qaadaroof ayaa dhabarka ka toogtay saaxiibadiis, xariir qarsoodi ahna la yeeshay Putin. waxaana lagu eedeeyaa inuu si dagaal la'aan ah ku siiyey magaaladii labaad ee ugu weynayd Shiishaan isagoon wax dagaala gelin. sidoo kale waxaa la sheegaa inuu bixiyo xogtii saaxiibadiis Shamil Basayev iyo Khadaab isaguna siiyey Ruushka. ugu dambeyntiina Ruushka oo si gaargaar ah uga ugaarsaday howlgalo military. taa beddelkeeda Axmed Xaaji Qaadaroof ayaa helay ballanqaad ahaa inuu noqon doono madaxweynaha dowlad goboleed hoostegi doono Ruushka. markii la ugaarsaday hogaamiyaashii wax iska caabinta ugu sarreeyay, waxa uu noqday Axmed Xaaji Qaadaroof madaxweynaha Shiishaan, laakiinse xukunkiisu siima uusan raagin oo sanadku markuu ahaa 2004 wuxuu ku geeriyooday qarax lala beegsaday. xoogaga wax iska caabinta Shiishaaniyiintu ma noqon kuwa halkaas ku joogsada, balse waxay ahaayeen kuwa mar walba khasaare isdaba jooga u geysta Ruushiyaanka, sidoo kalena aan ku koobnayn gudaha Shiishaan oo keliya, balse howlgallo qorshaysan ayay ka fuli jireen gudaha Ruushka. kadib 10 sano ayuu ku dhawaaqay Ruushku inuu soo gabagabeeyey howlgalkii Shiishaan. maanta Shiishaan waxaa hoggaanka u haya ninkan oo lagu magacaabo Ramadaan Qaadaroof oo ah wiilka oo dhalay ninkii aynu hore u soo sheegnay Axmed Xaaji Qaadaroof, kaas oo saaxiibadiis dhabarka ka toogtay. ugu dambeyntii barnaamijkeena aynu uga hadlaynay
shiishaan halkan ayuu ku egyahay daawadayaal waana mahadsantiin haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo dhammaadka